siyaasi xasan faarax jaamac sageerish oo siyaasi ruuqada ayaa ku nool magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood isagoo la hadlay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa waxa uu sheegay inay jiraan dad khalkhal gelinaya magaalada oo qaxinaya maatada ku dhaqan magaalada Laascaanood waxa uu sheegay in magaaladu nabadgelyo tahay aan loo baahnayn in la khalkhal geliyo bulshada danyarta ee ku dhaqan magaalada Laascaanood waxaan ka hadlayaa maanta anoo Laascaanood jooga ayaamahan olole socday meel laga wada iyo dadka wada ujeeday ka leeyihiin aan la garanayn oo magaalo madaxda Laascaanood dadka ku nool la qixinayo oo leeyahay magaalada waa lagu dagaalamayaa ee ka qaxa oo dibadda ka socoto lacag la soo dirayo oo gudaha ka socota arintana waxaan u sheegayaa reer Laascaanood dadka wada inayan dadka deegaanka degan iyo dalka u dhashay midnaba kuwa u danaynaya ahayn waxaan u sheegayaa inay yihiin dad bililaqadoona oo raba dadku markay in la qixiyo dabeedna hantidooda la bililaqaysto dadka hawsha wada waa bililaqadoon dad mas'uuliyiina maaha dad wax garada maaha dad wax kala garanaya maaha kuwa u dhigtaagaya arrimaha sidaas maqlayaana aad uba sii liita waxaan inii sheegayaa wax jiro oo hadda laga qaxo anigu iyo dadka wax garadkii iyo dadka wax qiimeeyaan midna og yihiin ma jirto labada maamul ee Soomaaliland iyo Puntland demeesha isku haystaan isku dilayaan waa la og yahay 70 kilomitir bay Laascaanood jiraan wixii hore ee jiray wax ka weyn oo jirana ma jirto dadka xoogga ka dhiganaya ee maatada iyo wax magaradka leh magaalada waa la soo galayaa ee ka qaxa waxaan leeyahay reer Laascaanood ha iska celiyeen talabaad ninka reer Laascaanood u dhashay ee qaxaya xaggu u qaxaya mahargeysu u qaxaya waayrabu u qaxaya magarow u qaxaya ninka deegaankiisii haduuba qaxaba dadka waa qixi jiray markii burburku dhacay waxa loo kala qaxay nin waliba deegaankiisii buu u qaxay nin waliba meeshii adigoodii iyo cawskoodii iyo gurigoodii joogaa buu u qaxay xagee u qaxaya ninka Laascaanood jooga barhal la isweydiiyay ninka qaxaya Laascaanood jooga xagee buu u qaxaya waxa weeye baraarinta haduu ba jiraan wax hadda maxaa ku qaxinaya gurigaaga iyo deegaankiiba joogta maamuladana de maanta qodha ma aha ilaa 15 sano la isku haystay oo dagaal ka socday magaalada dhexdeeda cidana kuma dagaalamin cidana xabad kama ridin cidama soo maray ma jiraan kuwa sii maray ma jiraan xaaladda la abuurayo ee dadka lagu kicinayo leeyahay waa hal qaxo waxa weeye waxaan leeyahay wax dadkan dan u ah maaha waxay dhaqan u leeyihiin maaha waxaan leeyahay arinta iyada wax garadka hadii la qaxo oo qax la keeno ganacsi ma jirayo ragga hadda hudheelada waaweyn iyo hay'adaha iyo xawaaladaha iyo lacagta badan ku haysta ma jiriyaan iyaga la rabaa waxooda in la bililaqaysto waxbarasho ma jirto boqolkiiba 50 baa dadka waxbarto dadku ay ku nool yihiin macallimiintu waxbarashada haba la baran maayo la cibaadaysan maayo masaajid lagu tukan maayo hadda balaaya ninkii u yeertaa ana waxaan leeyahay isaga ha ku ekaato belan ma jirte ninkii bala doonaya ilaahay isaga ha ku ekeeyo laakiin wax garadka reer Laascaanood oo magaalada jooga oo fadhi ku dagaalanka maatada waxa ku maqashiinaya iyagoo dantay leeyahay anu garanaaye hal la qaxo dibadiya gudaba xoog baa laga dhigtay awoode ninka xoog haya meesha la isku dilaya ha tagade ninkii dagaal doonaya qoriga ha qaato meesha la isku dilaya ha tago dhinacu doona ha ka soo jeesto laakiin habraha iyo maatada iyo curyaamiinta iyo dadka gaboobay iyo waxa guryaha ku xareysan ee meel walba waxa la yiri magaalada waa la isku dagaalamaya ee waxa dadka maqashinaya ha ka daayeen
maamulkana waxaan leeyahay magaalada jooga siyaasiyiin baa joogto gobol baa joogo blace baa joogo nabasugud baa joogto de waxaan leeyahay maamulku waxa ka qabto oo dadka qixinaya ee waxa saxaafadii waxa laga dhigtay dadka hala qabtaan leeyahay oo waxa laga qabto dawladdu waxa ka qabato dadka dhulka u dhashay aad baan u amaanaya culimada maanta iyo ilaa shalayba masaajidada ka hadlaysay bisi jaamac iyo masjid huda iyo khayr allaha siiyo dadka yiri warkada ay xasarada waa rabadaan bisha rabadaanna de wax runa iyo wax khayr qabaa la sheegaa xilligii ciida weeye adeero bilaayaha u yeeranina haddii ay dhibi jirto dee dhibtu waa ciidamadaas ay hayeen shicibna kuma jiro waxaan leeyahay oo kale u baaqaya meelaha laga sheegayay dad iska masaakiin oo shiciba in la qabsaday war waxa laga weynaado waxa laga tagiyay ha laga karo dadku waa dad walaala waa dad deegaana meel la kala tagaya ma jirto dhulku kala go'i maayo colaadanuna hadda waxa la isku haystaa dhul baa la isku haystaa cid un bay gartu raacsiinaysaa de hal la joojiyo waxaan kale iyo xamaasada iyo waxaan dadka lagu wado ee balaayada dadka lala doonayo waxaan leeyahay oo ugu baaqaya ha laga joojiyo dadka deegaanka u dhashayna waa qaxina ayaan laga maqal waa ceeb xaguu u qaxaya dadka dhulka jooga hantida ku leh odayaasha waxgaradka cuqaashana de ha ka hortageen wixii beenta iyo huhaada wada aad iyo aad baa u salaamantiin